Sirta testosteronka sida loo kordhiyo iyo 8 qodob oo muhiim ah oo aan ku qaada dhigi doono testosteronka ragga iyo waxa uu uga dhigan yahay ragga. La garee muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada. Aan ku horeyne hormoonka testosteronka waa mishiinka kaxeeya ragga, murqaha, xoogga iyo niyad wanaagga qofka. Marka uu hoos u dhaco, waxaad dareemaysaa daal, niyad jab iyo daciifnimo. kow Hurdo tayo leh 7 ilaa 9 saacadood haweenkii. Tani waa sirta ugu weyn. Inta badan testosteronka jirkaaga waxaa la soo saaraa inta aad hurdo. Haddii aad seexatana 5 saacadood oo keliya, heerka hormoonkaagu wuxuu hoos u dhacayaa qiyaastii 15 hal habeen gudahood. 2 Faa'iidada zinc iyo vitamin D. Vitamin D-ga waa saaxiibka koobaad ee testosteronka. Qoraxda u fadhiiso ama fadhiiso qoraxda oo ha kugu dhacdo ugu yaraan 15 daqiiqo maalintii. Zinc waxaa laga helaa hilibka cas, digirta iyo lowska. Haddii zinc uu kugu yar yahay, waxay keentaa in hormoonka uu si degdeg ah u dhaafo ama u yaraado. Tan xigta, iska yaree walwalka. Marka aad walbahaarto, jirkaagu wuxuu soo saaraa hormoonka cortisol. Labadan hormoon, testosterone iyo cortisol, waxay u shaqeeyaan sida miisaanka. Marka mid kor u kaco, kan kale ayaa dhaca. Isu dheelitirnaantuna waa furaha. Tan xigta, dufanka caafimaadka qaba. Ha ka baqin baruurta caafimaadka qabka sida saliid saytuunta, olive oil, avokadada, lowska iyo ukunta. Jirku wuxuu u baahan yahay dufan si uu u soo saaro testosterone. Iska yare sonkorta iyo burka. Cunista faraha badan ee sonkorta waxay kor u qaadaa insulinka, taasoo si toos ah u xidha ama hoos u dhigta testosteronka dhiigaaga ku jira. Yaree miisaanka baruurta caloosha. Baruurta ama hilibka caloosha ku urura waxay leedahay enzyme la yiraahdo aromatase, kaasi oo testosteronka u bedela hormoonka haweenka ee estrogenka. Calool yaraantu waxay ka dhigan tahay ragnimo badan. Iska ilaali caagadaha plastigada. Plastigada waxaa ku jira kiimikooyin la yiraahdo PBA iyo phthalates oo markaas u ekeysisa jirka hormoonka estrogenka. Isku day inaad biyo ku cabto dhalooyinka ama galaaska macdanta ama birta. Qubeyska biyaha diiran ama biyaha qabow. Inkastoo cilmi baaristu ay weli socoto, haddana waxaa la rumaysan yahay in biyaha qabow ay kiciyaan qanjidhada soo saara testosteronka, halka kuleylka badan iyo xad-dhaafka sida uumiga joogtada uu daciifiyo awoodda ragga. Haddii aan sii dhex jibaaxno qaybaha kale ee markaasi ka qayb qaata ama xoojiya xawaaraha testosteronka ragga, jimicsiga culayska ee loo yaqaano strength training. Jimicsiga culayska sida qaadista birta, squatska, push-upka, deadliftska wixii la mid ah waxay si toos ah u kiciyaan soo saarista testosteronka. Jirka ragga waxaa si gaar ah u saameeya jimicsiyada isticmaala murqaha waaweyn, lugaha, dhabarka iyo xabadka. Jimicsiga gaaban balse culus 30 ilaa 45 daqiiqo ayaa ka waxtar badan jimicsi dheer oo jirka daaliya. Ha badin jimicsiga xad-dhaafka. Inkasta oo jimicsigu uu faa'iido u leeyahay jirka, haddana jimicsi xad-dhaaf ah ama waxa loo yaqaano overtraining wuxuu kordhiyaa cortisolka, taasi oo hoos u dhigta awoodda ragga. Inkasta oo jimicsigu uu faa'iido u leeyahay jirka, calaamadaha lagu garto jimicsiga xad-dhaafka waxaa ka mid ah daal joogto ah, muruqa xanuun aan dhammaanayn, hoos u dhac rabitaanka galmada iyo arrimo kala duwan. Midda xigta, cunista borotiinka kugu filan. Borotiinku waa dhismaha murqaha. Murquhuna waa saaxiibka testosteronka. Marka jirka uu helo borotiin ku filan, murquhu way kori karaan. Jirkuna wuxuu dardargeliyaa hormoonada ragga. Ilaha borotiinka: ukunta, hilibka, kalluunka, digirta, lowska, intaba waa ilaha ugu fiican ee laga helo borotiinka, isla markaana jirka quudiya, deetana siyaadiya awoodda ragga. Ka fogaanshaha khamriga ama maandooriyaasha ayu noocba waxay waxyeeleeyaan qanjirka xiniyaha, halkaasi oo testosteronka laga soo saaro.
isticmaalka khamriga badan wuxuu yareeyaa tirada shahwada. Isticmaalka qaadka iyo balwadda noocyadeeda kala duwan waxay hoos u dhigaan tayada hormoonada, waxay kordhiyaan estrogenka. haddii aad doonayso awood ragnimo oo xoogan, fadlan xadid ama ka dheerow waxyaabaha aad isticmaasho ee balwadda ay ka mid tahay. Isticmaalka basasha iyo toontu waxaa leeyahay waa dawooyin dabiici ah oo la xaqiijiyay inay kordhiyaan wareegga dhiigga, waxay kiciyaan soo saarista testosteronka, waxay yareeyaan estrogenka. Ka fogow kuleylka joogtada ee xiniyaha. Xiniyaha waxaa lagu talagalay in ay qaboojiyaan jirka intiisa kale. Dharka aad ciriiriga u ah, fadhiga dheer ee aan kala go' lahayn, laptopka oo bowdada la saarto, intaba aad baa looga deeriyey oo waxay saameyn ku yeeshaan baa leeyahay awoodda ragga oo ay laciifiyaan. Qoraxda waynu ka soo hadalnay iyo sidoo kale isku kalsoonida ama kalsoon la'aanta iyo go'aan qaadashada. Cilmi baaris ayaa muujiyay in ragga go'aanka adag qaata, mas'uuliyadda qaada, isku kalsoon ay leeyihiin testosteron ka sarreeya kuwa ka cabsada ama inta badan is-hoysiiya. Maskaxdu iyo hormoonadu waa ay inta badan isa saameeyaan. Haddaba haddii aad ka fogaato cuntada warshadaysan sida processed foods, dhammaanba cuntooyinkan gasacaysan waxaa la sheegay inay yihiin cuntooyin la warshadeeyey, waxayna kordhiyaan baruurta jirka, waxay carqaladayaan hormoonada, waxay wataan kiimikooyin la dagaalamo awoodda testosteronka. Intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan. haddii aad nagu cusub tahay, subscribe inoo saar, like garee muuqaalkan, qaybta aragtidaada commentiga inoogu reeb. waxaan rajaynayaa in muuqaalo badan oo xiiso badan aad ka bogan doonto. waqti ahaan waxaa muhiim ah qofka in uu markaasi gaar ahaan jadwalka galmada marka laga hadlayo, gaar ahaan lamaanaha baadi goob ugu jira sidii ay uur ku heli lahayeen. awlaadda ilaahay baa baxsho. waqtiyada xilliga ugxaantu aysan diyaar ahayn ayaa ka mid ah waxyaabaha inta badan dhakhaatiirtu ay sheegaan in fursadahaasi dadku ay isku beegaan, ama in waqtiga galmada qofka tirada galmada la rabo inay aad u yar tahay ama ay aad u badan tahay. intaba waxa ay yareeyaan fursadaha uurka. xalka dabiiciga, baro calaamadaha ugxaan siinta, dheecaanka cad xilliga haweenku ay iyagu ku jiraan xilliga waqtiga ovulationka ama ugxaanta la soo daynayo, waa waxyaabaha ugu badan ee keena fursadahaasi. haddaba samee galmo 2 ilaa 3 maalmood ka hor inta lagu guda jiro xilliga ovulationka. sidoo kale isku day in waqti fudud aad qaadato. bacriminta ma aha hal qodob oo keliya, waa isku dhaf jir, maskax, cunto iyo nolol maalmeed. marka waxyaabaha yaryar ee markaasi aamusan aanu la dareemin ee hoos u dhiga fursadaha uurku, inta badan aad bay u tiro badan yihiin. waxaana la doonayaa in lamaanuhu ay fahmaan bal qaabka ay iyagu ay cilladaha xagga uurka ka haysto ay ku ogaan karaan iyagoo la soconaya caafimaadkooda.